Israa'iil ayaa weli waxay sii wadaa weerarada ay ku hayso magaalada caasimadda ee Lubnaan. Nidaamka fadhiidka ee waddankaasi waxba ka celinayay xilli ciidamadii burburayay ee ururka Xisbillaahi saacadihii ugu dambeeyey oo dhan ay sheegayeen in ay isku diyaarinayaan inay tallaabooyin waaweyn ee qaadaan. Wararka ayaa sheegaya in ururka Xisbillaahi uu qaaday weeraro gebi ahaanba isdaba joog. Ururka ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay ku gumaadeen kuna galeen deegaanka Al Adaysa oo ah markaas xuduudda labada dhinac u dhaxaysa, halkaas oo ay sheegeen in ay u galeen kadib dhaqdhaqaaq ay ka sameeyeen ciidamadu iskuna dayeen in degmada Markaba ay soo galaan. Ciidanka ayaa sheegay in ciidamo cutubleey loo diray, sidoo kalena ciidanka ayaa galay degmada Nahariya, halkaasoo iyagana gantaallo lagula garaacay baabuurta gaashaaman ee Israa'iil. Israa'iil ayaa sheegaysa in saacadihii ugu dambeeyey oo dhan uu hanaanku marba marka ka dambaysa uu u eg yahay in uu sii qaraaranayo, ayadoo dhanka kalena qiimaha shidaalka uu cirkiis ku sii shareerayo, lana sheegay inuu $100 hadeerto uu fooda la galay, xataa uu ku dhow yahay $100 iyo konton filis. Xilli marmar ka dambaysa ay sii badanayso qiimaha shidaalka oo ay isku dayayaan dalalka reer galbeedku inay arrinta iyo warka qaraabeeyaan. Dowladda Iiraan ayaa dhinaca kale waxa ay isku diyaarisay weeraro hor leh oo la yaab leh oo isku xiran oo ay qaato. Ciidamada ilaalada kacaanka ee waddanka Iiraan xaruntooda loo yaqaano Khatam al-Anbiya ayaa soo saaray warbixin ay uga jawaabayaan weerarada ka dhanka goobaha markaasi dekedaheeda, xarumaha shidaalka iyo sidoo kale kaalmaha kale ee muhiimka ah. Afhayeenka u hadlay ciidamada Khatam al-Anbiya saldhigooda dhexe ee ciidanka looga taliyo waddanka Iiraan ayaa waxa uu sheegay in ay gobolka ay dalqaadsiinayaan. بسم الله الرحمن الرحيم. gobolka waxaan qabadsiin doonaa dab holcaya, dunidana waxaan qabadsiin doonaa dab dhaqaale. Cid walbana xanuunka iyo danqashada waxay ugu tegi doontaa goobteeda ayuu ku hanjiyey. Afhayeenka ciidamada ilaalada kacaanka ee xarunta Khatam al-Anbiya Central Headquarters kaasoo uu sheegay in haddii weerar yar oo caata ah xitaa lagu xagto goobaha shidaalka, kuwa dekedaha waddankanada ayuu yidhi, iyo sidoo kale goobaha istaraatiijiga buu yidhi ee aanu degan. oo ah si gaara ayuu yidhi markaasi kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka inay taasi ka tafmi doonto caro iyo dab ayuu yidhi. Wuxuuna sheegay in kaabayaashoodu gebi ahaanba haddii weerar yiriisa oo aan macno weyn lahayn hadeerto iyaga u samaynayn, laakiin annaga mid weyn noo samaynaya oo noqon doono. Waxaanu ka digaynaa soo duulayaasha dowladaha soo duulayaasha iyo dabadhiifyadooda gobolka oo dhan iyo asxaabtooda oo dhan, weerar yar oo aad ku soo qaadaan kaabayaasha tabarta ee waddankayaga, dekedaha jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan, waxa uu la kulmi doonaa burbur aad xooggan iyo jawaab masiibo keenta, taasoo noqon doonta ayuu yidhi mid lagu daandaamiyo looguna darraado, ayuu yidhi soo duulayaasha iyo hanaanahooda aad iyo aadka u qariban. wasba warka u dhigay isagoo hadlayey ayuu sheegay talisku in ay u diyaar garoobeen in ay noqoto dunida haddii lays arki waayey oo laysku dulqaadan waayey lana kala xishoo waayey inay dowladda dalkiisu ay go'aansatay iyaduna inay waranka iyo gabaska wax ku goosato. Isagoo hadalkiisa sii wata afyaanka iyo weliba warmurtiyeedka ay soo saareen ayuu sheegay in Iiraan ay gebi ahaanba meel iska dhigtay haatan iyo wixii ka dameeyaba sii socoshada suba salaax dambe iyo in laysbariyo oo laystuugo, arrintuna isku bedeli doonta arrin dagaal oo aad u xooggan. Gobolka oo dhan ayaa dab ka dhici doonaa. Qulqulka markaasi baasiinka isqabsadana wuxuu noqon doonaa mid meel walba guba, dhaqaaluhuna wuxuu noqon doonaa mid laga soo hoydo oo laga quusto. Ugu dambaynna qof walba wuxuu ahaa karaa mid mar ka dambaysa mid aad xooggan oo ka dhasha khataro iyo weliba dhibaato aad xooggan. Taliska ciidanka ilaalada kacaanka ee waddanka Iiraan ayaa dhinaca kale waxay sheegeen in ay qaadeen tallaabooyinkii ugu horreeyey taas ay uga jawaabayaan, waxaana u dhigan tahay marmar ka dambaysa iyadoo ay sii badanayso ayaa layidhi dhaqaala darrada dunida ruuxaysa. Xigniinaha tirtirabeelka iyo sidoo kale hanjabaadaha isxiga ayaa dhalinaya haddaba kadib markii sidoo kalena la sheegay in saacadihii ugu dambeeyey dowladda Iiraan ay soo saartay dhowr qorshe oo muhiima oo dagaalka xaaladdiisa haddana mar kale lagu soo casriyaanayo. Isla judhii Iiraan ay soo saartay hanjabaadaasna shixnado, duulaamo iyo weliba duqayno la yaab leh ayay u dirtay dhul kala duwan oo gudaha Israa'iil, taasoo ka dhigan ayaa layidhi inay durbo ka jawaabtay weerarada tirabeelka ee ku imaanayay saacadii ugu dambeeyey iyagana dhankooda. Weerar iyo weerarceliska ayaa u muuqda haddaba in uu dhaliyey marxalad ay dadku aysan si fiican aysan u fahmayn. Goortii horeysan waxaa la sheegay deegaanka Basaar ee bartamaha magaalada Teheraan ee xarunta waddanka Iiraan in laga maqaliyey qaraxyo waaweyn, halka sidoo kalena degmada Ahfaas la sheegay in bambooyin aad u xooggan ay kalaba qarxeen. Iiraan ayaa sheegtay in ay dhammaan arrimahan dhan ay muujinayaan yuhuunta weli loo sii hayo dagaal ayaga ka dhana, sidaa daraaddeedna ayaguna aysan waxba ka qabin haddii ay dadka ay go'aansadeen in tallaabooyinkaasoo dhan ay qaadaan. Dhinaca kalena wadaadka ayatullaha waddanka Iiraan ayatullah Cali Khamenei ayaa si weyn khudbaddii ayatullaha uu dhalay Cali Khamenei ee loo yaqaan Mujtaba Khamenei ayaa si aad u xooggan loo falanqeeyey, iyadoo dadka qaarkood ay ku tilmaameen inay khudbaddani muujisay hoggaanka iyo weliba aragtida uu ka leeyahay dowlad dunida, dalka iyo difaaca, taasoo weli ay sii socoto.
qaar ka mid a dadka aadka u indheeyey khudbadiisa ayaa ku tilmaamay in hadalkii uu soo saaray ay muujinayso in isbedello aad u xoogan darboba ee waddanka ay ka dhaceen iiraan ayaa dhinaca kale waxa ay sheegtay in markii ugu horreysay ay gebi ahaanba ka fakerayso in maraakiibta keliya halkaasi ka xidhnaada ay noqonayaan kuwa Israa'iil iyo Maraykanka cilaaqaadka la leh ayadoo sheegtay in maraakiibta Maraykanka iyo Israa'iil cilaaqaadka la leh ee halkaasi ay marayaan ay noqon doonaan kuwo si gaara loola tacaamulo oo iyaga loola diilgareeyo oo si hadalka u dhigeen dhanka kalena dowladda dalka Maraykanka ayaa sheegtay in diyaarad ka mid ah diyaaradaha muhiimka u ah dalka Maraykanka ee qaaliga ah la waayay saacadihii ugu dambeeyey iyaga oo warkaasi war qoraal ah intaas lagu soo sheegay gadaal ayaan kasoo sheegi doonaa warkaasi war degdeg oo diyaaradda Maraykanka la waayay nooca ay tahay tafaasiishada iyo meesha lagu waayay ayaan eegi doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa dagaalada ka soconaya gudaha waddanka Ciraaq ee isaguna sii ballaadhay ee aan fiirinay ciidanka ilaalada kacaanka ee waddanka Iiraan ayaa dhinaca kale waxaa la sheegay inay kor u qaadeen ayaa leeyahay tallaabooyin aad iyo aad u xooggan waxaana ay markii ugu horreysay soo saareen war la yaab leh ciidamada ilaalada kacaanka qaybta u qaabilsan markaasi sirdoonka ayaa ku amray dhammaan hoteelada ku yaala bariga dhexe in aysan siinin wax markaasi hooy ah hoteeladu 11,000 ee askari ee gobolada ee dalalka gobolka ku yaala degan waxayna ka digeen in 11,000 ee askari ee gorsii horreysay ka soo baxay saldhigyada aysan haba yaraatee ammaan aysan ku ahayn halkaasi waxaana ay yidhahdeen gebi ahaanba waxaanu ogaanay ama aan soo helay goobaha ay degan yihiin hoteelada ay gaar ahaan ku sugan yihiin ciidanka Maraykanka ee laga saaray xeryihii sida laajigeena hoteelada iyo goobaha gaarka loo leeyahay waxaa uga digeynaa sii martigelinta iyo hoysiinta ay yidhahdeen askarta Maraykanka ciidanka ilaalada kacaanka waddanka Iiraan ayaa warbixin ay u qaybiyeen wakaaladaha wararka ay ku jirta wakaaladooda Tasniim ayaa looga digay shirkadaha iyo weliba hoteelada iskale goobaha ay degan yihiin ciidanka militariga dalka Maraykanka ee gorsii horreysay laga saaray xeryahoodii si ay ugu badbaadaan ayaa la yidhi markaas hoteelada ay shacabku degan yihiin sida laajligeedna waxaa lagu amray inay hadeerto iska diraan oo iska fudeeyaan waa waajibaad in gebi ahaanba xog kasta oo ah goob kasta oo ciidanka Maraykanka argagixisada ah isku qarinayaan aad gebi ahaanba noogu soo dirtaan ay yiraahdeen baraha Telegramka haddii aan ogaanana taas waxay noqon doontaa tallaabooyin inaanu qaadno degdega ayay ku yiraahdeen warka ay soo saareen arrintan ayaa waa mid sii qaraaraanaysa marka dambayseed ee dalka Iiraan waxaa ka dhacay isku soo baxyo waaweyn oo dowladda mas'uuliyiinteeda ugu sarreeya uu ka mid yahay madaxweynaha iyo Cali Lawarjani madaxa amniga qaranka ee hogaamiya dagaalka ay si aad u xoogan ugu soo bambaxeen sabirkaana ay kumanaan kun oo qof ay isugu soo saareen banaanka magaalada iyo fagaarayaasha weyn ee magaalada Tehran ee xarunta waddanka Iiraan soo baxyadan waddankan Iiraan ay gebi ahaanba laga sameeyey ayaa ahaa fariimo waaweyn oo la dirayay oo ahaa in lagu taageero marka horeysa maalinta loo yaqaano maalinta Qudus oo ah maalin ay u sameeyey ayatolihii hore ee waddanka Iiraan ayatollah Ali Khamenei uu u sameeyey markaasi in lagu xuso qadiyadda Falastiin waxaana la xusaa maalin kasta oo waqtigan oo kala ayadoo dowladda dalka Iiraan ay marka ka dambaysa qaado tallaabooyin waaweyn oo hor leh oo ku aadan markaasi sida loo muujinayo markaasi badqabka iyo weliba isku duubnida dadaalka xooggan ee dadka iyo wadajirka ayatollah waddanka Iiraan ayatollah Ali Khamenei ayaan isagoo fagaaraha iman kadib markii la sheegay in si aad u xooggan oo jujuub leh hadda ciidamada ilaalada kacaanka waddanka Iiraan ay markaasi ay u hayaan sawirkan ay u diideen in uu ka soo qayb galo meelahan oo kale laakiinse ninka aan ka dhicin ayatollah Cali Lawarjani loo yaqaano oo ah markaasi ragga talada waddankaasi u dhax iyo madaxweyne Mas'uud Pezeshkian ayaa kumanaan kun ee qof halkaasi isa soo qaaday ayagoo Israa'iil dhinaca kale duqeynaysa sawirkan ay isku dayaysay in dadka oo markaasi kumanaanka kun ah ay dad badan ka layso oo diyaaradaheeda duqeyntu ay ku soo dhawaadeen laakiinse sida wararku ay sheegayaan dowladda ayaa markaasi isku daysay in ay la ilaaliyo dadka kadib markii la sameeyey gorsii horreysay in kor loo qaadayo difaacyada agaga ay dadku isku soo baxayaan madaxweynaha dalka Iiraan ayaa hadallo kulul ka jeediyey halka sidoo kale Cali Lawarjani uu yidhi hadallo kulul gadaal ayaad ka fahmi doontaan kar maqli doontaan dhinaca kale Iiraan ayaa sii wada ayaa leeyahay inay faragelin dhinaca amniga iyo tallaabooyin ay ku qaado gudaha wadamada Europeanka ayadoo la sheegayo in ay maalmihii ugu dambeeyay oo dhan ay Iiraan wado tallaabooyin aan kala dhacaynin oo tirapeer oo ay ka mid ka tahay ayaa la yidhi bisaasida qaar ka mid ah xeryaha ay joogaan ciidamada Maraykanka iyo kuwa kale dalka Greek ayaa sheegay in nin u dhashay dalka Poland oo loo maleynayay in sirdoonka Iiraan uu u shaqeynayay lagu helay in uu markaasi basaasayay saldhigga ciidanka Maraykanka ee Kate ku yaala halkaasoo ay sheegeen in uu ahaa muwaadin Polish ah waxaana la sheegay in ninkan uu isticmaalaya xarunta Crete islamarkaana wakaalada wararka ANA ee loo yaqaanay dalkaasi Greek ayaa ku tilmaantay in 58 jir uu ahaa uuna qorsheynayay sawirro dhinacaasi waaweyn ah iyo kuwa ay furan yihiin marka geopolitics wax loo yaqaano locations
ama meesha uu baqcadda ay ku taallo dhulka uu kaga yaallo in uu u dirayo xubno aan la garanayn. wararka ayaa xaqiijinaya inay tani timid kadib markii la ogaaday in arrintani ay tahay in laga golleeyay in markabka dalka Mareykanka uu halkaasi dhowaan uu dib ugu soo gurtay kadib markii xaaladdu ay xumaatay. markabka USS Gerald R. Ford oo ah markabka ugu weyn ee dunida ee xambaara diyaaradaha ayaa gacankaasi horey uga dusay islamarkaana dadka qaarkood ayaa aaminsan inuusan biyahaasi Mediterranean-ka aad uga fogeyn walow la sheegay goortii hore inuu isku berberiyey dhinaca Arabian Sea. si kastaba ha noqotee saldhigyada iyo sawirrada la soo qaaday ayaa u muuqda kuwa sii adkaanaya. haddaba dowladda dalka Iiraan ayaa u muuqata in ay gebi ahaanba ay sii wadi doonto awoodaha tirabeelka ay la soo baxayso. ciidamada ilaalada kacaanka waddanka Iiraan ayaa maalmihii ugu dambeeyay oo dhan waxa ay sheegayaan in ay si aad xoog leh ay u soo saarayaan qalabyo ay gaarsiinayaan xarumaha gaar ahaan dhismayaasha Tel Aviv iyo Haifa iyo sidoo kale dhismayaal kale. Iiraan ayaa go'aansatay in ay burbur aad xooggan ay ka sii wado islamarkaana ay u geysato gudaha Israa'iil. magaalooyin Tripoli oo Israa'iil ayaa la arkayay inay si aad xooggan ay u naafoobeen xilli Israa'iil ay sii wado ololaha ah inaysan saxaafaddu aysan tabinin burburka aadka xooggan halkaasi ka dhacay. waxaa la sheegay in weeraradii ugu dambeeyay Israa'iil ee ka dhacay gudaheeda ka mid yihiin kuwo si gaar ah loogu bartilmaameedsaday dhinaca galbeed ee magaalada Qudus ee haystaan Israa'iiliyiintu iyo sidoo kale dhinaca kale ee magaalada Tel Aviv iyo sidoo kale magaalada Haifa iyo xarumaha kale duwan ee laamaha amniga ee Israa'iil. ciidanka ilaalada kacaanka waddanka Iiraan ayaa sheegay in hub hor leh lagu tijaabinayo Israa'iil sida daraaddeedna ay yihiin kuwo loogu daraa doono marmar ka dambaysa iyagoo intaas ku daray in si isku mid ah loo burburi doono xarumaha Mareykanka ee gobolka uu ku leeyahay iyo saldhigyada kala duwan iyo taweynta ciidanka Israa'iil meelaha ay fadhiyaan. taas oo ka sii qaadaysa yaalidhi xaqiiqooyinka ku aadan in dagaalku uu noqon karo marka ka dambaysa mid Israa'iil marka la yiraahdo markaas waxbay xakamaysay ay Iiraan ay soo butacayso hub hor leh. dhinaca kalena khasaraha aadka u xooggan ee gobolka ka dhacaya waxa uu taabanayaa dalal kala duwan. qaar ka mid ah wadamada jeebkooda ayuu taabtay muwaadiniintooda kuwana wuxuu taabtay jeebka dhaqaalaha gaar ahaan shidaalka saliidda iyo sidoo kale qutal daruuriga. Hindiya ayaa ka mid ah meelaha ugu ba'an ee haddeer laga soo sheegaya dhibaatadu inay taabatay islamarkaana dadku inay ootaan ee qarka u saaran yihiin. hindidu dadka ugu badan ee ka shaqaysta bariga dhexe weeye ilaa iyo $50 bilyan oo lacag ayay hindidu ka sameeyaan markaasi bariga dhexe sanad walba. taasina waa dadka shaqaalaha ee tirabeelka ay hindida ah ee gobolka ku sugan. waxaan la sheegay maalmihii ugu dambeeyey oo dhan aysan shaqo jirin ayna yaraatay lacagii xawaaladaha la soo dhigayey oo ay u muuqato xaaladdu inay sii darsanayso. ayaga keliya maahay wadamada kale ee koonfurta bari Asia sida Pakistan iyo sidoo kale Bangladesh ayay arrintu taaban doonta. ilaa iyo $50 bilyan ayaa si gaara aandaasi ay u taabanaysa. waxaana la sheegay in khasaarahani uu yahay mid marka dambaysa ku khasbaya hindida iyo shiinayska iyo wadamada noocaas oo kale inay joojiyaan dagaalka. dalka Shiinaha ayaa dhinaca kale sheegay in iyaguna gurmad ay u sameeyeen markii ugu horeysay qoysaskii ay carruurta yaryar ka leedeen ee iskuulka laga duqeeyey. inkastoo Shiinuhu uu caan ku yahay gacan yaraanta haddana yaalka arrinta ayaa soo jiidasho gaara yeelatay kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ay ku dhawaaqday in $200,000 ay u dirtay qoysaskii ay dhibaatadu ay ku dhaceen kuwaasoo u muuqata in calaa qoys markaasi la siiyey lacag ilaa iyo $1,500 ku dhowaada halka qoysaska qaarkood la sheegay in carruurta ay dhowr ka joogeen iskuulka weerarka lagu qaaday. iskuulkan ayayna sheegeen in carruurtii Mareykanka ay laamsiyeen ay ku dhufatay markaasi diyaaro ay ku dhufatay kantaal nooca Tomahawk. wakaaladaha wararka ee dalka Mareykanka ayaa ku tilmaamay in ay tani tahay gebi ahaanba khaladaadkii ugu waaweynaa ee indhoweeta dhaca oo ay ku jirto ayaa layidhi gebi ahaanba in aan la hubin xogta dhinaca sirdoonka ee la soo saaray. dhinaca kalena deegaanka Adana ama gobolka Adana ayaa mar kale waxaa laga helay sida wararku ay sheegayaan haraadiga gantaal kale oo la aaminsan inuu ku soo dhacay. dowladda Turkiga ayaa diiday inay degdeg uga hadasho arrinta. Turkiga maalmihii ugu dambeeyey si weyn loogu canaantay in uu marka uu gantaal ku soo dhaco isagoo hubsan Iiraan ku eedeynayo ayaa maanta haraadiga gantaalka ku soo dhacay halkaasi aan cidnaba ku eedayn. waxayna sheegeen inay baaritaan ku sameynayaan. madaxweynaha dalka Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa mar kale ku celiyey in dalkiisu aysan ka dameynin weerarada lagu qaaday gobolka Adana sida daraaddeedna aysan ku jirin qorshaheeda xayndaabka ay doonayaan inay soo gashadaan dalka Turkiga meelaha uu ka bidkaya. salaajigeedna waxay sheegayaan inay sii wadi doonaan oo keliya duqaymaha iyo weerarada kale wax ku oolka ah ee wadamada fadhiisimada rasmiga lagaga soo duulaya ase yeeshee aysan wadankooda ku jirin. hase yeeshee Turkiga ayaa arrintaas u eed inay tahay ka malafan oo marwalba ka dambaysa waxa uu sii wadaa weerarada. Israa'iil ayaa qiraanaysa in ilaa iyo 3,000 oo qof ay ku dhaawacmeen weerarada ugu dambeeyey ayagoo sheegaysa in dhimashada dadkuna ay yihiin ilaa iyo 30 ku dhowaad. laakiinse Israa'iil ayaa hadda dhowr iyo 10 qof kaliya qirsan. wararka qaarkood ay sheegeen dhimashada askarta iyo kuwa kale saraakiisha ciidanka qalabka sida aan lagu darin. Israa'iiliinta ayaa sheegaysa in 2,977 ruux ay dhaawacmeen kuwaas ay sheegeen ku dhowaad 250 ee isbitaalada ku jira.
si kastaba ha noqotee Israa'iil ayaa inta badan shaacisay uun dhaawacyada mana sheegto inta badan dhimashada. dhanka kalena dowladda Australia ayaa u sheegtay muwaadiniinta diblomaasiyiinta ee aan muhiimka ahayn oo dhan inay ka soo baxaan dalka Libnaan. Australia ayaa sheegtay in dhammaan shaqaalaha aan muhiimka ahayn ee diblomaasiyiinta ay dalka isaga baxaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi haweeneyda leedahay Penny Wong ayaa sheegtay in waddanka laga saari doono dhammaan dadka muwaadiniinta ah sida warqsaha badan uguna suurtagalsan ee diblomaasiyiinta weliba sii ah. Ururka Xisbillah ayaa u muuqda in gabi ahaanba sheekooyinkii ku saabsanaa in awooddooda la wiiqay dagaalkii 2024 bilowday ee u dhexeeyey ayaga iyo Israa'iil kadib markii ay ku biireen ololihii ay ugu hiirinayeen Xamaas iyo Gaza ayaa isu soo taraya in la leeyahay hubka iyo saanadu gabi ahaanba Israa'iil way ka yaabiyeen. qaar ka mid ah saraakiil Israa'iiliyiin ayaa sheegay inay u baahan yihiin inay howlgeliyaan xukuumadaha Beirut iyo xukuumadda Dimashq sida ugu dhaqsaha badan. sababtoo ah waxay leeyihiin ma naafilaynin in awoodda hubeed iyo tan kansheed ee ururka Xisbillah ilaa xad uu inta leegay. xogo ay helayaan wariyaal kala duwan oo ka tirsan TV Al Jazeera ayaa sheegaya in ay marmo ka dambaysa ay soo badanayso awoodda bandhigeed ee ururka Xisbillah inuusan dab yarshadaynin. taa waxaa ka sii daranba kaydka ay haystaan iyo wixii sirdoonka Israa'iil ay ogaayeen inay kaaf iyo kala dheeri ay noqotay. Israa'iiliyiintu waxay aaminsanaayeen in awoodda dhinaca dagaal iyo kanshada ururkan uu leeyahay ay tahay mid kooban. marka laga hadlayo in ay ka qayb qaataan weeraro aad u culus oo daba dheeraada inaysan sahlanayn ama aysan u fududaa lahayn. laakiinse marka la fiiriyo kan taariikhi ugu dambeeyay ee soo tuure weerarada iyo weerar celisada istabajooga ah ee la yaab kale waxay u muuqataa ayaa la yidhi ahaanba in dagaalku uu yahay marmar ka dambaysa mid sii qaraaraanaya oo weliba sii adkaanaya wase wararku ay sheegayaan. qaar ka mid a dadkii ugu dambeeyey arrintan aad uga hadlaya waxay leeyihiin ciidamada gabi ahaanba waddankaasi Iiraan ma aha oo kaliya kaligood laakiinse sheekadu waxay u eg tahay marmar ka dambaysa in ay sii badanayso oo ay sii adkaanayso xitaa ay sii qaraaraanayso oo ay sii dhaafayso karkaarka meeshii la doonayey oo sida warka loo dhigay. haddaba ayadoo taasi ay halkaa marayso halkaa batirinayso dhinaca kale dowladda dalka si Turkiga ayaa ku tilmaamtay in ay xukuumaddii iyo dowladda Lubnaan ay qarka u saarantahay inay dunto iska daa iyadoo inay wax tarto Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa sheegay in duqaynta aadka u ba'an ee Lubnaan ay Israa'iil u geysatay ay tahay mid aad u arxan daran sidaa daraaddeedna ay qarka u saaran tahay inay arrintaasi faraha ka baxdo. isagoo la hadlayay dhiggiisa waddanka Jarmalka Waterfield oo loo yaqaano Mr. Waterfield loo yaqaano ayaa waxa uu u sheegay in Ankara ay ka walaacsan tahay burburka aadka u xooggan iyo weliba weerarada aan kala joogsiga lahayn ee lagu hayo dalkaasi in ay dhali doonto xaalado iyo carqalado aad u waaweyn oo dhinaca dagaalka. Hakan Fidan ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in waddanka si uu gabdhaanba uu u muuqdo in uu sii wado waa nidaamka Israa'iil isballaarinta aadka u xooggan ayagoo wadnaha farta u haya waanu cabsanana. sidaa daraaddeedna dowladda dalka Turkiga waxay aad uga walaacsan tahay weeraradani in aysan keliya oo ahayn kuwa ay Israa'iil ay ku doonayso Xisbillah laakiin ay doonayso inay waddanka Lubnaan oo dhan ku qaadato xilli xukuumaddii fadhiidka ay dabadhiifka hay'adda waddanka Lubnaan ay gabi ahaanba ayada ay Israa'iiliyiintu ay ka sugayaan inay dhabarka kala disho Xisbillah. dhinaca kalena wasiirka amuraha dibadda dalka Turkiga Hakan Fidan waxa uu ka digay in ay dowladda dalka Turkiga aysan gabi ahaanba diidanayn in ay istifaacdo dowladda Iiraan kadib markii uu soo bateen caro ka dhalatay hadallada hanjabaadda ah ee dalka Turkiga maalmihii ugu dambeeyay cagajugleynta ay ku hayay Iiraan ayuu wuxuu u muuqdaa in Hakan Fidan uu doonayay in uu dabkaasi bakhtiyo ayadoo isaga si khaasa farta loogu gudayay inuu dirqinayo hogaamiyaha waddanka Turkiga Erdogan isla markaana uu cadaawadda dalkaasi uu bumbuunayo. su'aali kama taagna ayuu yidhi in dalka Iiraan uu xaq u leeyahay gabi ahaanba in uu is ilaaliyo xaqna uu u leeyahay in madax banaanidiisa iyo sharaftiisa iyo cisadiisa uu dhowrto gobolka oo dhan. laakiin waxaan leenahay waan ka dareemanaa colaaduna way fida sidaa daraaddeedna ka gees ayay maraysaa. arrintu waa arrin sii fidaysa marmarka dambaysa xasaradu waxay u eg tahay inay khatar ay tahay laakiinse markay noqoto territorial integrity ama hufnaanta dhulkeeda ama waxa loo yaqaano gobonnimada dhuleed ee waddankaasi waxa uu sheegay in aysan gabi ahaanba ahayn arrin su'aal ay taagan tahay. sidoo kalena talis bedelis ayuu ku tilmaamay inay tahay sheekooyin kale oo iyaguna hadalkooda ah waa sida uu sheegaya Hakan Fidan. Hakan Fidan ayaa u muuqda in marmar ka dambaysa uu dhalinayo arrimo aad iyo aad u xooggan oo la yaabkooda ah taasoo uu doonayo inuu falkiyo ayaa la yidhi. dhinaca kale haddaba sida ay wararku ay sheegayaan dowladda dalka Iiraan ayaa qorshayaasha dhinaca dagaalka waxay ku samaynaysaa mar walba casriyeen. horta marka horeysa dagaalka waddanka Iiraan way la qabatimeen qabatinka dagaalka iyo qaabka Israa'iil ay u dagaalanto gabi ahaanba waxa ay kula qabatimeen weerarkii hore ee ka dhacay
dalkaasi bishii June ee sanadkii 2025 iyo sidoo kale weeraradii ay geysteen markaasi diyaaradaha dagaalka waddanka Iran waddanka Mareykanku ay geysteen Iran u geysteen waxaa kaliya oo la soo karaa Soomaha Iran saraakiil badan ayaa laga dilay waa maxay sababta markii dambana dadkii hogaamiyahoodii looga dilay arintaas waa idin sheegay khaladka hogaamiyaha waddanka Iran lagu dilay yani inkastiisi dhamaatay haddana waxa uu ahaa protocol breach waxa la yiraahdo security protocol breach oo security lagu ilaalinay qaabka lagu ilaalinay ay isagu jabiyay ayagaana markii dambe anigu markii day one watay yani idin sheegay sabtidii dagaalku bilowday bishii hore laakiin markii dambe watay ayagoo sidoo u sheegan waad maqlayseen in nimankii suuliyiinta ahay markii dambe ka hadlay watay sidoo u sheegan oo yiri anigu de Iran 90 milyan oo qof kale adiga kaliya godgal maalin walba godgal oo godka kale adigu gal ma yeelayo arintaas calay kul xaal ku saxsanaa ma ku khaldana si kastaba noqotay uu ku dhinto laakiin marka laga yimaado dhinaca dagaalka hadaba khidadaha ay sameeyeen mala awaalka ay sameeyeen madluufinta ay sameeyeen iyo sidoo kale waxa loo yaqaan weerarada ay isku xidheen intuba waxay keeneen in ay dagaalka ay fahmeen haddaba Iiraaniyiinta ayaa waxaan ogaanay in ay waxa jira loo yaqaan afka qalaad eri waxa jira la yiraahdo waxa la yiraahdo war of attrition war of attrition war of attrition waa military terminology ama waa eri bixin dhinaca militariga waxa weeye dagaalka sidiisaba waa laba nooc mar waxa weeye waa dagaal adigu aad dalbatay oo aad go'aansatay oo aad marka hore wax allaale wixii ka imaan karo dhan aad faahfaahsatay dagaala taliyay tan baa kugu dhici karta tan baad geysan kartaa khasaarahaasa imaan kara khasaarahaasa lagu geysan karaa waa dagaal aad u diyaargarowday oo muddo dhan u diyaargarowday kaydkiisa dhaqaalihiisa wixiisa samaysay dagaalo waa dagaal samir taag waayo lagugu khasbay oo sida Iiraan kan lagu khasbay oo kale sida la ajligeed dagaalkaasi laba shayba buu u baahan waxa weeye marka koobaad in aad dagaalka adigu aad la qabsato nooca dadka kula dagaalamaya ay u dagaalamayaan iyo sida ay rabaan wax ku yeelaan inaad fahanto sida la ajligeedna in aad gabi ahaanba sida ula shaqayso meesha ay u socdaan aad u fududayso adoo ugu fududeynaya wax ayagu weeg war say sameeyeen mooyo Mareykanka iyo Israa'iil waxay yiraahdeen waxaan doonaynaa inaan baabi'ino hubka iyo warshadaha Iiraan kadibna waxay sameeyeen warshado iyo hub mala awaala kuwaas ayaana gantaarihii lagu khasaariyay leedahay taa waxa ka sii daran qaabka dagaalku u soconayo waxa loo yaqaan markaasi waa attrition waayo marba sidii loo jabo ayaa loo dhutiyaa hadba inta ay soo daayaan weerar iyo dagaal u dhigma ayaa lagu dhigaa kadibna waa isku dhuftay dagaalkii dagaal isku dhaf ah ayay Iiraan samaysay kaasoo ah in cid walba horta marka oraysa dhibaatada haysata iyaga dhibaata haysata dhaqaalahoodii shidaalkoodii iskuuladoodii waxbarashadoodii noloshoodii intaa in lag inay u gaarsiiso gobolka oo dhan cid walba marka wax la wada qabo waana kaa hadda dagaalku meesha u maraya wuxuuna u eegay Iiraan inay marba ka dambaysa dagaalkaasi ay sii wadi doonto isla markaana in ay marba marka dambaysa dagaaladu ay noqon doonaan kuwa sii qalaadaada sii socda Iiraanna waxay leedahay hadda sidii loo jabo iyo loo kufaay war of attrition ayaan wadaynaa oo dagaalka marba dhinac yaaleenaya marba dhinac ay u badato dhinaceeda kale ayaan uga wareeganaa farina kama qodna dagaalkan ayay leeyihiin anaga xagga yagana waxa dhulka naga yaala malaha ayay leeyihiin oo wax nagaga xumaanaya ma jiro wixii naga xumaan karaya naga xumaade intii nalaga dili karayay nalaga dil intii dhib nagaari kaysay nagaadhay laakiinse waxa kaliya hadarta noo horay waxa weeye waxay leeyihiin waa hubka yaga sharafta iyada waddanka yaga ciidda iyada iyo hantida waddanka yaga inaan ilaashano taana waa ka dagaalamana beelay wali Israa'iil iyo Mareykanka ayaa iyaguna beegsanaya kaabayaasha dhaqaale waddanka Iiraan waxaana la sheegay in magaalada Karachi iyo sidoo kale Tehran labadaba ay qarxiyo waaweyn ay ka dhaceen kuwaas loo maleynayo inay yihiin xarumihii shidaalka ee waddanka Iiraan tan ayaana markaasi sii fududeynaysa wax loogu yeeray marba ka dambaysa in Iiraanna ay gabaskay waranka u qaadato ayadoona banaysashada goobaha markaasi kaabayaasha dhaqaalaha ee dunida madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in dalka Mareykanku uu gabi ahaanba uu qaadi doono tallaabooyin uu ku dibcinayo hanaanka dhinaca shidaalka ee dalka sii qaaliyoobay wuxuuna sheegay inuu isticmaali doono axadiga loo yaqaano DeAndre Jones Act kaasoo ah in gabi ahaanba dowladda dalka Mareykanku ay bilowdo hanaan dhinaca dhaqaalaha ah oo ay ku fududeynayso ayuu yiri markaasi isku socodka dhinaca dekedaha iyo sidoo kale in dalweynaha Mareykanka si looga hortago ayuu yiri dhibaatooyinka aadka u xooggan ee shidaalka ka dhalan karaya kadib cunaqabataynta ay Iiraan saartay inuu sii badanayo
iiraan ayaana markii ay weeraradan la kulantay sidoo kalena madaxweynaha dalka maraykanku uu sii wado macno muujinaya dagaalku inuusan weli istaagayn. waxay dhinaca kale ay sheegtay iiraan kuna dhawaaqday inay qaadi doonto dhowr tallaabo oo waaweyn oo ay ka midka tahay iyaduna inay gantaale ku butaaci doonto Tel Aviv iyo deegaano kale. warbixinta Israa'iil ee madaxa bannaan ee uu ka mid yahay Haaretz ayaa sheegay in gorsii horreysay laga maqlayay bartamaha Israa'iil iyo magaalada Tel Aviv labadaba. waxa ay ugu yeedhay markaas qayle dhaanta finta ee sii baroorata ka hor intaysan dhacdooyinka dhibaatooyin kale aysan dhicin. waaxda dhinaca difaaca Israa'iil u qaabilsan hawada ee loo yaqaano Home Front Command ayaa sheegay in weerarku uu ahaa mid aad u xooggan. tan ayaa imaanaysa iyadoo dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu uu isku dayey in uu dadka Israa'iiliyiinta khudbad u jeediyo uguna sheekeeyo in Iiraantii hore aysan hayn, isla markaana uu sheegay in dilka hogaamiyey waddanka Iiraan uu ahaa nin caasiya, isla markaana ninkan kale ee hadeerta soo hadlay uu rabay inuu u jawaabay muctab, isagoo isku dayey in gabi ahaanba narrative-ka uu ka hortago gaar ahaan hadallada ka dhashay khudbaddii la yaabka lahayd ee ayatullaha dalkaasi Iiraan ee cusub uu u jeediyey mujtamaca caalamka iyo kan Iiraaniyiinta. ayuu Netanyahu asaguna khudbad jeedinayay dhinaciisa waxa uu ku tooqay in ay dowladda dalkiisu ay qaaday dhowr tallaabo oo degdeg. dhinaca kalena hogaamiyaasha wadamada Pakistan iyo dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku kulansan magaalada Jidda. ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa la kulmay amiirka dalka taajka boqortooyada iskale Amir Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. kulankooda ayaana la sheegay oo ka dhacay aag markaasi iyadoo la sheegay in sidoo kalena la diiday in ay ka soo ag dhowaadaan wax warbaahina iyo dad kaleetoon. labada hogaamiye ayaa la sheegay in iyagu si gaar ah khaas u sheekaysteen. wararka ayaa imaanaya inay labada hogaamiye ay ka wada hadleen aragtiyada dhinaca iyo dunida sii xumaanaysa, sidoo kalena gobolka dhibaatooyinka aadka xooggan ee ka jira iyo sidoo kale mustaqbalka aad iyo aadka u sii darsanaya wadamada caalami islaami xilli ay gabi ahaanba wadamadaasi ay noqdeen kuwo ayaga lagu soo duulo iyo kuwo markaasi iyaga dhexdeeda burburka oo dhan ee dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay bariga dhexe oo dhan uu fuulay. ciidanka ilaalada kacaanka waddanka Iiraan ayaa ku dhawaaqay in ay qaadi doonaan tallaabooyin argoosi ah oo ay hadeerta ku beegsanayaan kaydka dhaqaalaha Israa'iil kadib markii Israa'iil ay saasi xeertay. madaxa guud ee taliska ciidanka qalabka sida waddanka Iiraan ee dhinaca hawada ee loo yaqaan Iranian Revolutionary Guards Aerospace Forces ayaa sheegay in Israa'iil xarumaheeda ciidan ee gabi ahaan xarumaheeda shidaal gaar ahaan ceelka shidaalka loo yaqaano Leviathan iyo kan loo yaqaano Karish labadaba ay noqon doonaan kuwa badda Mediterranean-ka lagu burburiyo. General Masad Musafi ayaa sheegay in ay tani tahay kuwo gabi ahaanba ka mid noqon doona meelaha la burburiyey, wuxuuna sheegay in ay yihiin meelaha aan hadeerta daneenan, wuxuuna ka digay in talabadana ay noqon doonto mid aad iyo aad u xooggan. dhinaca kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale isku dayey in uu sheego in uu ka hadlo dhowr qadiyadood oo waaweyn oo ay ka midka tahay in uu dowladda Mareykanku weli ay dagaalka sii wadi doonto. haddaba qaramada midoobay iyo hay'adaha kala duwan ee dunida ayaa sheegaya in xaaladda adduunka hadeerta ay aaday marxalad aan indhawata la filaynin inay dib ugu soo noqoto caalamka, xilli ay arrintu u muuqato in laysku dowladeynayo, lays xasuuqayo, islamarkaana laysku duulayo, islamarkaana lays qabsanayo. tan ayaa imaanaysa kadib markii ay soo baxday warar waaweyn oo sheegaya in adduunka taariikhiyan la rabo dib in loo qoro. tan iyo imaanshaha madaxweyne Donald Trump. madaxa guud ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan baaritaanada xuquuqul insaanka Ben Saul ayaa sheegay in la galay taariikh madow oo cusub. waxaa la galay taariikh madow oo cusub oo markaas xadgudubyo abuses ayuu kuwaasoo noqon doona ayuu yidhi in gabi ahaanba wadamadu ay gabi ahaanba ayagoo oo ka dhiganaya waxbaba aan ku soo marmarsoonaynin ay wadamada ku qaadayaan waxa uu ugu yeedhay duulaan qaawan si ay u cusboonaysiiya gumaysigii iyo addoonsigii dunida laga soo waaday, waxaana uu tusaale u soo qaatay weerarka Iiraan lagu qaaday iyo kii lagu qaaday Venezuela horaantii bilashadii sanadkan milaadiga 2026. isagoo haddaba Saul uu tafaasiil dheeraad ah ka bixinayay ayuu yidhi dunida hadeerta waxay u egtay in xoog la isticmaalay. wuxuu baraarujiyey wadamada qaarkood aan hogaamiyaasha fiican lahayn iyo kuwa dadkoodii ay iska hurdaan ama kuwa iyagu isku mashquulsan. sida tudhow aniga waxay ku soo dhacday Soomaalida maanta sida ay tahay u kala dayacan tahay kala daadashada dhexdeeda, cadowgoodu siduu uga dhex baxay ee qoloba meel uu ugu xidhay. hogaamiyaasha Soomaalida ee Imaaraadka Carabtu uu laga soo bilaabo ka Hargeysa jooga iyo ka Muqdisho fadhiya uu ugu wada taliyo iyo kuwa bartamaha dalka jooga ee Puntland iyo weliba kuwa koonfurta cirifka kale ee Jubaland, kuwaasoo gabi ahaanba uu farta Imaaraadka Carabta ugu wada yeedho beddelkana ayagu aysan salaanta sharciga iska wada qaadaynin. xilli la sheegay xataa in gumaystaha tooska Soomaalida uusan u tarin ee wakiilka gumaystuhu uu wakiil uga sii yahay isla gumaystaha. waxaana uu sheegayaa ninkani haddaba in ay dhacday dhacdooyinka ninkii xoog leh ayaa xiran, wuxuuna ku tilmaamay in dadka bini'aadanka oo dhan ay gabi ahaanba hadeerto inta midowda ee ayagu waddankooda ilaashada keliya ay badbaadi karaan. dowladda Iiraan ayaa taliyadeedu wuxuu ugu yeedhay shacabka waddanka Iiraan in la ilaaliyo
midnimada dalka iyo sidoo kale hantida dalka oo uu ku sheegay in wadanka lagu soo duulaanka lagu yahay uusan ahayn oo keliya in xukuumadda iyo dadka shakhsiyaadka farakutiriska ay biri iskaba dhimanaya lagu socdo laakiinse ay tala kala qaybin iyo kadib in hantida gaar ahaan gaaska dabiiciga iyo shidaalka maguurtada ee wadanka dhiisalka uu hodanka ku yahay gacanta lagu dhigo tani waxay ka mid tahay inuusan qofna ogeyn meesha ay waxaanu ku dhammaanayso ayuu yidhi wuxuu yidhi gebi ahba laba garanayo meesha ay ku dhammaanayso war faragelinadan maraykanku haddeerta uu hogaaminayo wuxuu ku dameyn karaa sidii liibiya ciraaq afghanistan iyo sidoo kale dhammaan wadamadii ay ka dhacaan masiibooyinka oo dhan kuwa haddeerta aan fahansanay ee markaasi u riixinayana waxaysan ka sikaraynin ama aysan si fiican aysan u garan karaynin fogaan aragga arrintan kasoo jijile iyo weliba qadiyadda fool xumaa karaysa haddaba iswarmaynta dunida iyo sidoo kale dhibaatooyinka aadka u xoogan ee la qaadanayo ximaanasa iyadoo netanyahu weli uu sii doobayayo xilli uu dunida dabsunayo qodobada netanyahu uu ka hadlay waxa uu sheegay in ay gebi ahaanba ay rabaan inay joojiyaan in iiraan ay yeelato wuxuu ugu yeeray hub nukliyeera iyo inay noqoto meel hodan ku ah gantaaraha ballistic missileska ah wuxuu kaloo sheegay in ay hadallada ka imaanaya muctaba khamani iyo naciim qaasim oo isaguna ah hogaamiyaha ururka xisbillah labadooda ay ka dhigan yihiin in aysan gebi ahaanba naftoodu aysan ku jirin ayuu yidhi insurance ama aysan caymis gaara aysan lahayn waxaa kaloo uu sheegay in gebi ahaanba uu yahay hogaamiyaha wadanka iiraan nin la haysta u ah ciidanka ilaalada kacaanka ee wadanka iiraan arrimahaasi waa hadaladii ugu dameeyey ee muujinaya colaadda iyo xasaradu inay sii tirnaa doonto un keliya